munaasabad ballaaran oo ay qabteen maamulka Al-Sunna wa Jamaaca gobolada dhexe kuna qabteen magaalada Gurceel ayay ku xusayeen sanad guuradii ka soo wareegtay waqtigii ay kala wareegeen xogaga Al-Shabaab deegaano ka tirsan gobolada dhexe sidoo faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Axmed. munaasabadan oo ahayd mid ballaaran isla markaana lagu xusayay sanad guuradii afraad ee ka soo wareegtay xilliga maamulka culimadiinka Al-Sunna wal Jamaaca ay gacanta ku dhigeen gobolada bartamaha Soomaaliya kalena wareegeen Al-Shabaab ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiinta ugu sarreeya Al-Sunna wal Jamaaca maamulka gobolka Galgaduud ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ciidamada maamulka Al-Sunna wal Jamaaca ee isugu jira military iyo police ayaa socdaal ku soo maray xaafadaha degmada Gurceel iyo waliba laamiga iyagoona ugu dambeyn soo gaaray garoonka kubadda cagta ee degmada Gurceel halka ay ku sugnaayeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba mas'uuliyiintii ka socotay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Al-Sunna wal Jamaaca Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefow gudoomiyaha guddiga fulinta oo ugu horeyn halka kula hadlay shacabkii isugu yimid ayaa waxa uu sharaxayaa ama uu sharaxaad ka bixiyay ujeedada munaasabadan isagoo sheegay munaasabada ka soo sanad guurada ee si gaar ah loogu xusayo raggii Al-Sunna wal Jamaaca kaga geeriyooday dagaalada muddada 4 sano ay kula jireen Al-Shabaab waxa uu sidoo kale xusay in dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya xilligaana aysan wax tixgelin siinin maamulka Al-Sunna wal Jamaaca lagana qayb galin siyaasadda dalka xilli lagu gudo jiro kala guur ujeedadeeda inaan qeexo ujeedadeedu waxa weeye in loogu duceeyo shuhadadii u soo kifacday diintooda islaamka min nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ilaa xilliga aanu joogno iyo inay muuqato baryahan dhuxdhuxdii la isla maraya carriga oo Al-Sunna wal Jamaaca waa baabaaday iyo isbeddela ku dhacday iyo waa khayranta lahaa inaan waxba ka jirin Al-Sunna wal Jamaaca ma baabiin mana baabayso ilaa iidankii bare koray u sii dalici doontaa mujtamaca halkan isugu yimid iyo kuwa caalamka jooga meeshan aan hadda ku noolnahay lagama weydiisan karin xil loogana soo doonan karin waxa lagu hunguriyeeyey waxa weeye shuhadadaa dhimatay iyo kuwa hadda jooga dartood amniga ay sugeelad u jeedaan maanta 4 sannadood ka bacdi iyadoon cid ku mana sheeganaysa deegaankana inay wax tareen la arag amniga aad u jeedaan oo aanan ka baqaynin inaba la ekaatee wax dhib ah waxaan kala rabaa inaan sheego deegaankana Al-Sunna wal Jamaaca ka taliso gobolada dhexe wax tixgelina iyo wax ay ku leeyihiin ama talaa oo ay ku leeyihiin arrimaha socda ee siyaasadda kala guurka inaysan jirin hadday dastuur ansixintii tahay hadday xildhibaano la xulaya tahay hadday madaxweyne la sharaxaya tahay innaba inaysan iyagu wax talaa oo ay ku leeyihiin aan arag maca daalika waxaalaala wixii wanaaga aysan ka hortagayno aysan mucaaradaynin ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Galgaduud ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Axmed Yuusuf Xasan Ciyow ayaa si weyn ugu mahad celiyay shacabkii halka ka soo qayb galay waxa uu tilmaamay in ay asaga farxad weyn u tahay inuu ka soo qayb galo munaasabadani maanta arrinta meeshan la isugu yimid xafladan oo ah xaflad loo dhigay shuhadadii ku soo dhimatay dagaalkii loola jiray khawaarijta ama alqaacidada runtii taasoo ah xaflad aad u qaali ah oo runtii la dhigi karo waa mid aad iyo aad annaga dhanna saamaysay ama qaranka Soomaaliyeed ama dalkoo dhan Soomaaliyeed saamaysay ama adduunkoo dhan saamaysay runtii aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa taas oo ah mid qaali nagu ah Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Axmed Soomaali Channel Gurceel.